Caalamka waxa uu ka cabanayaa hoos u dhac dhaqaale oo baaxad leh, annagana suuqyadeennii ayaa si macno darro ah u gubanaya maalin kasta. Haddaba waa maxay sababaha keena inay suuqyadeennii gubtaan? Muuqaalkeenan ayaan si faahfaahsan uga hadli doonaa. Magacaygu waa Cabdi Yuusuf, halkanina waa kanalka Baraarug. Ku soo dhawaada mar kale daawadayaal muuqaalkeena. Intaan arkay suuqyadeenna waxaa ilaaliya odayaal da' ah oo toosh iyo baakoorad sita, oo waayeel aan haysanin qalabka dabdamiska fudud, aqoon badan aan u lahayn. Reer Muqdisho waxaaba intaa u sii dheer inaysan kaamira bannaanka ku dhagsan karin si wax uun looga tixraaco, maadaama kaamirada kuluudhka laga heli karo xogta ay duubto xitaa haddii uu qalabka gubto. Aad bay isku saarsaaran yihiin suuqyadeenna, cooshadna way u badan yihiin iyo bagaash. Waxa inoo dheer intaasi in kartoomada maran iyo qashinka habeenkii dukaamada hortooda looga tago. Badanaa dadka gurmadka uga soo baxa kalabar waaba tuugo oo xoolahaagii dhacaya. Mararka qaar hub ayaad u baahanaysaa inaad u raadsato xoolahaagii oo dabka ku soo socda. Arrintani marar badan ayaan goobjoog u ahaa. Waxaanba is iri armay iyagu dabka kiciyaan gurmadkana fidiyaan. Ma jiro hal suuq oo leh baabuurta dabdamiska oo isaga u gaara, heeganna ugu jira, meelnaan u dhaqaaqin. Ganacsigu waa wax uu Ilaahay barakeeyo, waxaana looga maarmaa gacan hoorsiga. Qadartuse waa mid jirta in nin hantiilo shalay ahaa maanta faqiir yahay, balse waxaa ceeba in shirkado boqol kun ku maalgelin kara badbaadada suuqyada ay malaayiin ka badan uga aroorsadaan gurmadka dadka hantidooda basbeeshay. Haddaba waxaan ku talinayaa si loo badbaadiyo badqabka suuqyadeenna in sida ugu dhaqsiyaha badan ganacsatadu ay u samaysato ciidamada ilaalada suuqyada, in si wadajir ah mas'uuliyad isaga saaro qashinka, dabdamiska iyo dadka ku soo gurman kara marka uu dabka kaco, in jaamacaduhu ay sameeyaan cilmi baarisyo ay ku daraasaynayaan arrimaha dabka